hadda meelay biyo fadhiyaan waa yar yihiin meelo badan waa laga saaray iskool bulisi waa bannaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteen waa laga bixin doonaa waxa kaloo dumay 9 guri hal qofna waa ku dhaawacmay waxa go'ay meeshan oo dhan ya dhulka gashay meelo badanna dhaawac xoog leh soo gaaray meeshan waa u jeedaan shalay siday ahayd iyo maanta waa kala duwan tahay hawl aad u adag laga qabtay walina waa la wadi doonaa wadooyinka naga burburay iyo waxa naga halaabo waa dhisan karnaa laakiin dadkii naga dhintay ma soo ceshan karno sidaas darteed waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay inuu jannadii ka waraabiyo una naxariisto annagana gadaashooda ilaahay nama fidneeyo hadda waxa la wada dadaal badan waa aragtaan roobka inta uu leh roob caadi ma ahayn wuxuu ahaa roob aad uga duwan roobabkii hore la aqooni jiray waxa la igu yiri taariikhda dadka dib u raaca 9 sano madin roob noocaas la igu yiri marka alxamdulillah hadda meelay biyo fadhiyaan waa yar yihiin meelo badan waa laga saaray iskool bulisi waa bannaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteen waa laga bixin doonaa saadarteed waxaan dadka uga tacsiyadeynaynaa wixii culeysya ay yimid waxay ka yimaadeen awooddu intay la ag tahay laakiin dawladda hoose iyo gobolka banaadir maamulkooda waxay ballan qaadayaan wixii tabar in aanan loo kala haraynin oo aynu arrintan sida ugu dhaqsaha badan wadooyinkana loo furi doono saadarteed waxaan ilaahay ka baryaynaa haddii roob kala yimaado inta aanan wax naga xumaanin bal in aan degdegno oo wixii aan dedeji karno aan dedejino ilaahay khayrkiisa nimcadiisa isaga yaqaan goortuu noo keenayo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho degan ee culayska ku qaba hanoo dul qaataano waxaan ku dadaalaynaa maalmo yar in wax waliba caadi ku soo noqdaan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank